Kulanti habboon daawadayaal, ku soo dhawaada sheekadii Kama Filin qaybteedii saddexaad oo aad ka daawanaysaan Dheema Show. Sheekada qaybtii labaad ayaa waxa ay noo joogtay hoodo oo gashay fasalka 12aad ee dugsiga sare ayna isbarteen wiil deegaanka ku cusbaa oo magaciisa la yiraahdo Cismaan kana yimid magaalada Muqdisho. Cismaan hoodo isagoo hadalhayay oo magaceeda ayuu maqlay balse wax aqoon ah oo sidaas u sii dheer ayadu maysan ahayn. Cismaan iyo hoodo waxay ahaayeen dad ehel ah oo iska agdhow qaraabo ahaan micnaha. Hoodo iyo Cismaan markii ay isbarteen asbuuc ay sheeko wadaag ahaayeen ayuu u sheegay hoodo Cismaan inuu yahay ina adeerkeeda ama dad iska agdhow dhinaca aabbaha. Wuxuuna u sheegay haddii ay ka aqbasho xiriirkiisa jacayl oo wado inay waxbarashadeeda ay dhammaysanayso ilaa uu sugayo intii iskuulkii ka dhammaysanayso. Walow u sheegay markii iskuulka aad dhammaysid aan isguursan doonaa haddii aad iga aqbashid xiriirkayga jacayl. Ayadoo waxay xiisaynaysay uu ahaa qofkii u doonaay ama ay ka heshay qaabkiisa wiil qurux badan oo ah midabkii ay jecleed ama dooqeeda ayuu ahay. Balse hal asbuuc markii sheeko wadaag ahaayeen u sheegay ayay hooda ka gaabsatay waxaana ku tiri ma doonayo inaan noqono sheeko wadaag walaalkay ayaa tahay hore uma aanan ogeyn. Markaas ka bacdi sababta oo markii hore uga qarinaya halkan asbuuc ay sheeko wadaag ahaayeen oo kowdii hore u sheegay oo isku baranin inay yihiin dad ehel ah ama dad iska agdhow ayay ahayd sababtan oo hadda hooda la soo baxday ee u sheegtay walaalkay ayaa tahay mana doonayo inaan noqono xiriir wadaag ama dad haasaa wadaag ah. Walaaltinimada ayaa naga badan toos ayaa naga dhaxaysa. Cismaan kama uu siiyeen hoodo uu u sheegay wax walba oo markaasi ay ku aamini karto oo ku soo jiidan karo. Waqti dheer ay ku qaadatay inuu fahansiiyo inay dad isgeeyay yihiin wada dhalashadu ay isku geyn karaan. Iskuulkeeda u ballan qaaday u dhahay iskuulkaaga waxbarashadaada waa jeceshahay waad dhamaynaysaa. Jaamacadda waddankaas waxaad ka dooranaysaa balse jacaylkayga ugu tixgeli. Markii hore way soo dhaweysay maanta walaalka markaa noqday ha igu adkayn. Hoodo si waa ka biididay taleefankii ayay ka xiratay. Markaas kadib ayuu soo tegay wuxuuna u yimid aabihiisa. Aabihiis ayuu u sheegay inay hoodo sheeko wadaag noqdeen balse ay ku adkaysay asaguna uu jecel yahay oo rabo inay noqoto marwadi mustaqbalna uu la yeesho. Cismaan aabihiisa ayaa u sheegay inay tahay hoodo hadduu gabadh u dooqi lahaa inay ahaan lahayd gabadhu u dooqi lahaa. Balse wuxuu ku yiri waa adiga yaalkadaada marka aad soo heshiisaan ayaa noo balana balse marka laga tago familka aad tihiin ama qaraabada oo aad tihiin aabihiis hoodo adeer ayuu ugu aadanaa. Marka wuxuu ku dhahay haddii gabadhaas aad soo heshiisiin adeer ka wahay anigu waan ku doonayaa waana sharfaya cidaas waana dhaqan gelinaya. Hoodo waa ay ka biididay taleefankii ayay ka xiratay Cismaan. Cismaan taleefankii hoodo markay xiratay ayuu gurigeeda soo aaday asaga iyo walaalkiisa oo tusaya guriga. Balse Cismaan wuxuu guriga ugu yimid hoodo hooyadeeda Xaawo iyo walaalkeeda Maxamed. Hoodo maalintaas waa ay ka maqnayd guriga oo waxay booqasho u aaday saaxiibteeda Hodan. Intaa hanoo joogto qaybta saddexaad ee sheekada Kama Filin. Ku maadsanta daawashadaada, leegta, sheerta, commentiga iyo falowda hanaga iloobin mahadsanidin.